بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام حلقتنا الطبانات وحن كجهد لنا طبعا تيهر وحن كجسر هذا لنا سلادة iyo zakada ahmiyada ay u leeyihiin bulshada iyo ahmiyada ay u leeyihiin in xumaanyaalka iyo waxyaalahaas oo dhan lagu baabiyo ahmiyada ay u leedahay ayaan ka soo hadalnay. xalaqadan waxaan kaga hadlaynaa qadiyad hore bari Israa'iil ku soo aroortay qisadooda oo runtii aad u dhib badan oo aafe ah waaye. marka taas waxaan u bixinay aafatul ulama ama aafatul ducaat, dadka dacwada ku jiro oo ummadda wax u sheegayo iyo dacwaadka laftigooda waxa aafa ku noqday waxaan lagu magacaabaa ta'muruna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tadluna al-kitaaba fala ta'qiluun. qof diintii bartay oo yaqaano oo haddana wuxuu dadku u sheegayo oo wanaagi aan sameynaynin, xumaanta uu ka reebayo xumaantii la imaanayo waa aafa. waa ilaahay naga ilaaliyo, waa aafaad u qaab daran. waa ducaadana ilaahay ka ilaaliyo. sababta maxay tahay marka sideeda oo fiir bulshada la tarbiyayna bulshada wax u sheegay bulshada ujeedada waxa way horumar inaad gaarsiiso waaye. takhallufka inaad ka ilaaliso ujeedada wax u sheegayso sidaas ilaahay dadka inaad ku xirtaad rabtaa. ilaahay dadka ma aragtay subhanahu wa ta'ala inuu ilaahay maxaa la yiraahdaa sidii ula dhaqmi lahayn inaad bartaad rabtaa dadka ilaa dadka kulli cilmi lama wada laha. maadaama sidaas ay tahay marka daaciga marka shuruudu leeyahay dhibaatooyin aafooyin leeyahay aafooyinka marka qayb kamid ah marka uu ka hadlay subhanahu wa ta'ala markaas uu ila ta'muruna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. sida saxda ah maxaa waaye marka sida saxda ah waxa waaye oo marka daaciga laga rabo aayadan anagoo milicsanayno oo ka istinbaadayno waxa waaye koo al-mutabaqa بين القول والفعل هرت إن إيش دبولان هذا الهدات شيكتو فعل كذا إنه دبولا ضد كان فعل كحقوقاتان هذا الكذات شيكتو ضد كأرك ويان علمي هذا واحد شيكتو ضد كمان نحكي لك قلبي قلبت يسوس قاليني سيد ضد قلبي وقلت شيء يسيد وإن فعل التمان ده واحد شيكتو فعل كوين التمان ضد هذا جماعة هذا اللي قلتكتو وإن هذه جماعة هذا يكون أركان هذا الزكاة اللي بحيه zakada waa inaad adiga bixiso hadii xoolaha gaaran sadaqaha la bixiyo tatawuc waa inaad adiga bixiso saasay marka ku soconi. kan kale waxa waaye waa aqeedada isluugaada iyo ismutaabaqayna inaad mutaabaqayso laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah tiri ilaah rumaysna tiri suluug waa inuu ka soo horba waa inuu ka soo baxaa yaani hab dhaqankaada waa in laga arko hadii hab dhaqanka laga arki waayo mushkilad ay noqonayso. muslimiintii hore fiiri waxyaalaha ku guuleysteen oo awood ku yeesheen maxaa kamid ah awood kastoo jirto adaka awood badinaysa leelimaada muslimiintu way soo tadbiiqiyeen waxa way ficilkaada iyo suluugaada iyo ma aragtay hadalkaada suluugaada iyo aqeedadaada ficilkaada iyo qowlkaada yaa is mutaabaqay maadaama tataabuqas is mutaabaqeynta ay dhacday ay marka noqotay natiijadaas marka waxa waa natiijatu mutaabaqa بين القول والفعل وايه ان ددك سيت اي هير قس غاران ددك او قيمه بدن اي نقدان افوينka ka dhalanay maxay ta marka aafada ka dhalanayso waxa waa adducaat iyo wadaawaad ay aafo u noqoni waxa waaye waa diin waa niman sheegay diin oo hadana diintooda sax aysan noqonin lan ayigi yaanan tadbiiqinayni. qodobka kale waxa waaye mushkilaadka fiiri iyo mashaqaadka oo qofka ka hor imaanaya masaa'ibta ka hor imaan aqabaadka qofka isku hor gudbaayo oo ma aragtay dacwada ama maxaa la yiraahdaa iyo horumarka iyo waxyaalaha noocaas oo kale ilaan qofka daaciga waa muslix waa sida macalinka iyo ducaada iyo kulli waa muslixiin waa ardayga hata markaad wax bar hadii adiga dhaqankii laga arkin ardayga safiyan wax ma baranayo waxna ma barin wax la xifdi ma aan saas awgeed marka muslix ijtimaaci la yiraahdaa أنا مدة مركز أتاجيه ما دام أساس أيتهاي وحوايا دودي ضعيف ونونا مشكلات كاس ودن وحيرها ده اسكو جود بان قف كما كجود بكرة لأن صوت كينيس وحوايا فعل كيس قول كيسة يعني اسم مطابقين مركو حان رجينا مركا
qodobkan asagan inaan aad ugu faa'iidaysano oo reer bani israa'iil ilaahay ugu qabto uu yiri ata'muruuna annaasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun kadib salaadii uu kusoo noqday ilaahay subxaana wa tacaala wastaciinuu bisabri wasalaa waa kasoo uma jeedid yani mashaakilaadka waxaa xallin karaa oo aafaadka waxaad kaga gudbi kartaa dhibaatooyinka waxaad kaga gudbi kartaa waxaan lagu magacaabo andhehe assalaa inaad kaalmaysato iyo sabarka asagana muhiim oo dulqaad badan aad ku barani oo ma aragtay ninkay sabra sidkiisa la dhahan Soomaalida marka inaasan ka faa'iideysanay xalaqadan iyadana la yiraahdo xalaqada maxay ahayd tabnaad waxaan rajeynaa ummadda Soomaaliyeed inay si ugu faa'iideystaan lana tadbiiqiyo marka waxaan sheegaynay waxaan aan ku hadlaynana inaan tadbiiqino majaal kastoon ku jirno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh